grammar ayaan ku barnaynaa qaybtan. waa qaybta ugu muhiimsan, waa qaybta ugu adag. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English with Susman official channel. waa qaybteennii grammarka ahayd, waa qaybteennii naxwaha ee ugu muhiimsan barashada luuqadda sidan hore u sheegay. waxaynu weli ku jirnaa qaybtii afaraad ee cashirkanaga personal pronouns. possessive pronouns aynu gudubno. lahaansho magacu yaal. This is my shirt. Kani waa shaarkayga. This can also xitaa tani be written waxaa loo qori karaa as sida anagoo isticmaalayno possessive pronoun. This shirt is mine. shaarkan waa kayga. oo midii koowaad haddii aynu u noqono this is my shirt. Kani waa shaarkayga. This taas ayada ah waa demonstrative pronoun in English grammar. Is waa verb to be. My waa possessive adjective waa midka hadda caawaynu baranayno. Shirt waa noun oo ismi ah. So this is my shirt. Kani waa shaarkayga. This can also tani xitaa be written waxaa loo qori karaa as sida this shirt is mine. shaarkan waa kayga. oo mid aad adigu iska leedahay ama mid ka mida shaararkayga. oo markaasaga distan waa demonstrative adjective aynu ku baran doono insha Allah hadduu ilaahay ka raali noqdo. Similarly lamidkay this is our school. Kani waa iskuulkanaga. this taasaga tii koowaad aynu kusoo qeexnay. This is our school. Kani waa iskuulkanaga. our waa possessive adjective sidaynu ku baranay. or ama waxaa la dhihi karaa this school is ours. waa midkanaga. That is his pen. kaasi waa qalinkiisa. That pen qalinkaas is his waa kiisa saas kale. That is her dress. kaasi waa labiskeeda. That dress is hers. labiskaas waa keeda. These are your books. kuwani waa buugaagtaada ama buugaagtiina. These books are yours. buugaagtan waa kuwiina. Those are the apples. kuwaasi waa tufaaxyadooda. Those apples are theirs. tufaaxyadaas waa kuwooda. waxaan u kala saaray possessive adjective and possessive pronoun si aydan ugu wareerin ama aydan ugu jahwareerin.